kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta iyo dunida iyo wararkii ugu dambeeyay dhinaca diblomaasiyadda daawadayaasha qiimaha leh nagala socoteen horfadhi media anagoo kala walba ummadda Soomaaliyeed ugu soo ururina afka hooyo wararka caalamka oo dhan isla markaana qodobada ugu xiisaha badan ee wararka isku soo dibadina idin soo gudbin qodobada iyo warbixinaha maanta ama wararka ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn dagaalkii dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ee adduunka xoogistay iyo Shiinaha oo markaasi cashuuro xilxaad la duldhigay alaabaha ay dalkaasi Mareykanku soo saaraan qaar kamid ah sidoo kale daawadayaal ku maqli doontaan dalalka Turkiga iyo Israa'iil ayaa iyaguna waxay isdhaafsadeen hadallo kulul iyadoo labada hogaamiye ee labadaasi dal kala xukuma ay hadaladii ugu adka abid oo shakhsi weerar isdhaafsadeen gobolka Kashmirna waxa ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa oo halkaasi muddo ka soconayay iyadoo dadka shacabku ay ku biireen gaar ahaan shacabka Kashmirta ay xukunta Hindiya oo si xooggan uga soo horjeestay dalka Botswana waxa loo dhaariyay madaxweyne cusub qodobadaas iyo kuwa kale iyo daawadayaal ku maqli doontaan waa labadii bishii Afraad ama Abriil 2018 waa maalinimo Isniin ah oo kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta iyo dunida aan ku bilaabay isla markaana ugu horeysay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu sheegay inuusan jirin heshiis ay la galayaan xisbiga mucaaridka ah ee laga aqlabiyada roon yahay ama laga tugtida roon yahay la yiraahdo dimuqraadiga oo ku saabsan in sharci la siiyo boqolaalka ruux ee aan haysan sharciga ee dalka Mareykanka iyagoo yar soo galay ee loo yaqaan ama barnaamijka loo yaqaan DACA Trump ayaa waxa kale uu sheegay in barnaamijkan loo yaqaan DACA ay si khaldan u adeegsanayaan tirada muhaajiriinta sharci darrada ee si kordhaya waxaana uu ku eedeeyay dalka Mexico in ay haba yaraatee ay dayaceen buuri ammaanka xuduudda labada dal ay wadaagaan isla markaana aysan hortaagin buuri dadka ku soo qulqulaya dalka Mareykanka Trump sidoo kale wuxuu ku booriyay xildhibaanada jamhuuriga oo iyagu inta badan labada qalba haatan ugu xooga roon ee asagu ka tirsan yahay inay ansixiyaan sharci markaasi u ogolaanaya in tiro ka badan tan loo baahan yahay in golaha sanadku ay ansixiyaan shuruucda noocaas oo kale ah ay iyagu isku codeeyaan iyadoo uu ugu baaqay inay isticmaalaan waxa loo yaqaano ikhtiyaarka nuclearka oo ah in cod haleeri ah lagu meel marsado dhammaan arrimaha ay dawladda ama xisbiga talada haya u baahan yahay taasoo ka dhigan haatan in madaxweyne Trump uu baahan yahay 60 cod kolka ay tahay inuu aqalka sanadka ka ansaxsado arrimaha ay kamid tahay lacagta gidaarka lagu dhisayo ee laga dhisayo gobolada ku yaala koonfurta dalkaasi Mareykanka ee xuduudda la leh Mexico Mr Trump ayaa wuxuu leeyahay in cod dheeri arintaas laga dhigaasay yeeshe hogaamiyaha talada aqalka markaasi aqlabiyada aqalka sanadka waa senatorka laga soo doorto gobolka Kentucky Nicholas Mitch McConnell ayaa sheegay in uusan ka fikreynin in arintaas ay ku dhaqaaqaan wuxuuna sheegay hadii arinta ay sameeyaan oo ay ka dhigaan in shuruucda noocaas oo kale lagu meel mariyo cod dheeri ama hal dheeri lagu meel mariyo inay taas ku soo noqon karto aqalkooda ama xisbigooda jamhuuriga isla markaana lagu wiiqi karo awoodooda kolka ay dhacdo doorashada November ee loo yaqaan mid term election oo ah doorashada waqtiga dhexe hadii ay aqlabiyada la wareegaan dimuqraadiyiintu madaxweynaha ayaa waxa kale oo ku hanjabay inuu isaga bixi doono heshiiska ganacsiga xorta ah ee nafta oo ah kan waqooyiga America dalalka kuwada yaala ay sida xorta ah ay ganacsiga u sameeyaan oo kuwada jiraan dalalka Mexico Canada iyo Mareykanku hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya iyadoo la sheegay inuu dhawaanahan jiray isku soo dhawaasho dhinaca ganacsiga ah oo u dhaxeeya madaxweyne Trump iyo dhigiisa dalkaasi Mexico Nicolás Enrique Pena Nieto oo ah madaxweynaha tan isagoo wajahaya doorashada adag iyo loolanka dalkaasi Mexico dhawaan ka dhici doona halka nagala socotaan waa horfadhi media wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca diblomaasiyadda iyo warbixinihii daawadayaasha qiimaha leh naga daawanaysa haatan bal sheeko ku saabsan madaxweyne hore oo uu sameeyeen sirdoonka dalkaasi Russia madaxweynihii hore ee dalkaasi Ukraine Viktor Yushchenko ayaa waraysi wuxuu ku siiyay magaalada London ee dalka Britain hay'adda ama laanta BBC da qaybta adduunka la hadasha wuxuu sheegay waa madaxweynihii hore ee dalkaasi Ukraine Viktor wuxuu sheegay in 14 sano ka hor qabkii wuxuu ka warbixin waafiya ka bixiyay 14 sano ka hor qaabkii loo sameeyay ama uu uga badbaaday Soomaaliya uu sheegay in ay markaasi ay u geysteen buuri sirdoonka dalkaasi Ruushka Mr Viktor Yushchenko wuxuu waraysigiisa ku tafaasiil kaga bixiyay wixii uu dareemay wuxuuna sheegay in qadiyadu ay ka soo bilaabatay kadib markii uu la casheeyay madaxa amniga ee dalka Ukraine isla markaana bariiskii ay ku casheynayeen lagu daray buuri sunta wuxuu sheegay in markii ugu horeysay uu dareemay arinta ahayd kolkii uu gurigiisa yimid oo uu dhunkaday buu yiri xaaskiisa wuxuu kadib markaa dhunkaday xaaskayga ayaa waxay ii sheegtay buu yiri in ay ur iyo waliba wax dhadhan xun ay ka soo urayaan afkiisa
wuxuuna sheegay in daqiiqada kadib uu dareemay wareer halka uu maalmo yar gudahoodna uu asagoo dhan bararay isla markaana jirkiisu isbedelay waxaana loola cararay dalka Austria oo asagoo ku yaala dalka qaaradda Yurub halkaas ayaana lagu daweeyay sanadkii 2014 waxaana uu sidoo kale sheegay mar la weydiiyay inuu aaminsan yahay bal in sumeyntiisa uu si toos amarkeeda u bixiyay Mr Putin ayuu arintaasi ka baqay wuxuuna yiri waxaan hayaa jawaabta oo cad laakiin mar rabo hadda inaan sheego hase yeeshee wuxuu ugu baaqay midowga Yurub inay muwaadiniintoodu ay ku jirto khatartii ugu weyneed isla markaana ay ku daadsan yihiin buuri qaaradda Yurub oo dhan waxa uu ugu yeeray sirdoonka dalkaasi Russia oo qaybinaya sun lixaad leh isla markaana ay tahay inay u midoobaan wuxuu ugu yeeray khatarta xooggan ee soo wajahday muwaadiniinta reer Yurub Mr Victor ayaa wajigiisa gabi ahaan buu isbedelay kolkii la sameeyay isla markaana waxa la arkaya iyadoo sameyntu ay jirkiisa dhan ee barar xoogan u geysatay haatanna wuu ka badbaaday hase yeeshee uu ka qoomameeyaa wixii ku dhacay iyadoo wali laga dareemay cabsidii arrintaas ay u geysatay inay wali ka sii muuqato halkaan naga daawanaysan Horfadhi Media wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinada dhinaca diblomaasiyadda dabadeesha qiimaha leh madaxweynaha dalkaasi Turkiga uu hogaaminaya 110 kamid ah dadka ugu caansan dalkaasi Turkiga ayaa waxay booqdeen jiidaha hore ee ciidamada dalkaasi Turkiga ay ku sugan yihiin gobolka Hatay ee u dhow duleedka gobolka Afrin ee ciidamadu ay ka wadaan dagaalka culus xubno kamid ah heesayaal ciyaartoy iyo waliba dad markaasi maalqabeena oo ay kamid yahay heesaga caanka ah ee dalkaasi Turkiga ee leeyahay Ibrahim Tatsis iyo gabadha kale iyaduna heesta ee leeyahay Ached Bikan Yusuf Bingol Sibilin Khan oo iyo ninka sida weyn u ciyaara basketballka ee leeyahay Heddu Turkul ayaa waxay booqdeen furinta ciidanka sidoo kale waxa ku helinayay ninka qaaday koobka dhinaca mootooyinka ee leeyahay Kenan Sofl waxayna booqdeen oo isla markaana la casheeyeen ciidamada qalabka sida ee ayagu halkaasi ka wada howlgallada waxay sheegeen in ciidamadu ay ahaayeen kuwo ayagu niyadooda aad u wanaagsan isla markaana aan u baahnayn hase yeeshee waxay sheegeen inay halkaas u tageen inay ugu mahad celiyaan hawsha qaran ee halkaasi ka hayaan iyo sida ay calanka dalkaasi ay u koryeeleen isla markaana ay kooxdii wax kharbudasay ee halkaas uga buriyeen mid kamid ah dadkii halkaas booqday iyagu maalqabeenka ayaa wuxuu yiri waxay nagu leeyihiin abaal xoogan waayo waxay u dagaalamayaan dalka yaga iyo calanka yaga iyo sidii annaga ay noo farxad gali lahaayeen annaguna waynaanu marmar farxad galina walow ay yihiin ciidamo si kasta u dhisan oo disciplinkoodu uu aad u sareeyo madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa isaguna uga mahad celiyay dadka soo qabanqaabiya xafladaas iyo waliba dadka loo yaqaan celebritiska ee halkaas ka qayb galay ama dadka magaca kule dalkaasi Turkiga iyagu ciidamada soo booqday halka naga daawanaysaana Horfadhi Media wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinada dhinaca markaasi diblomaasiyadda daawadayaasha qiimaha leh haatana bal gobolka Catherine iyo waliba Catherine hogaamiyahoodii xageed ku ogeed iyo waliba asagoo xabsiga ka soo dhaxadlay hogaamiyaha baxsadka ah ee gobolka Catherine hore uga cararay Charles Bugmadon oo ku xiran xabsi ku yaala dalkaasi Jarmalka ayaa fariin maqal iyo muuqaal soo diray hogaamiyihii hore isla markaana hogaamiye asagoo xitaa maqan ay doorteen dadkiisu Charles Bugmadon ayaa wuxuu ugu baaqay taageerayaashiisa ku sugan Barcelona Spain inaysan halganka joojin ilaa inta laga gaarayo yoolka ah in gobolkaasi uu helo madax banaani ka dhana dalka Spain wuxuu ku eedeeyay dawladda dalkaasi Spain inay isku bedeshay dawlad kaligi talisa isla markaana ay dadka caburinayso hadalkan ayaa waxa ka soo doobay xildhibaan ka tirsan xildhibaanada dalkaasi Jarmalka oo asagu xisbigiisa la leh markaasi cilaaqaad la leh oo xisbi yar oo ka tirsan xisbiyada inta badan ay Yurub ay wadaniyada madax martay ee dalkaasi Jarmalka ayaa wuxuu ka doobay maqal iyo muuqaal hadal ah kaasoo uu soo dhigay barta markaasi ee bulshada ku xiriirto xildhibaankan oo la yiraahdo Dieter Deham ayaa wuxuu